ما دركتي ور أن كسر أركي سعداء أن كنت جاي حبته وحابيه أن كرسوا كل مي يعب شوين كبر شدي الكجوبتي أن كدري مي وقبضني سنة كي هراء بشي اللي بيترماد صدق كذي أيوة واحد مرجيت كلو يحده يجيبوه لوجا كلو جدبه سلام مركان أنا واحد صار نقضي بالبنك مقنع بشي اللي بعد بشي كوبات صدق كذي بنكسر نقضي وحكوا أركي حالات آدي أدو عكرن أو إشكو جدب كلا بدل دل آدي أدو وحيلينس أو كجير تدينا حسوا مالات وحن مرة بعد كنا نقضي بيشن صدق حالي نقدر ما تدح دي آخر كذي وحن قلت جي إسرع حالات دي أصيدي أنكأ يعني لا أنت سعدالك ما دركت جمهورية الصومالية يلا أنت مالية ما دركت عشورها برجة كستنكا يعيدن أي وضعته قابك أي وحودان وقاب أدو ما دركت فرحين حتى ما سعدالك يجن قدام بي وحيابها إن لها سارة وحكم ده يجي أوضت كيسدي لولا تعامل لها إيش كويست أو سعدالك ليه أنا أخوها بوني إيدا مالية دينا لا ده هي أديك محامش كل كبر دقائق مش أنا أقول حنو أركا إسبورين وحن أركي وأنا هاي جساري dadkii oo madaxooga laga qaaday lacag madaxa qofka la cashuuray waxa kale oo iyaduna jirtay qofkii oo la leeyahay marka la cashuuro oo juwankii loo gooyo lagu leeyahay hadana mayane baasaboor baa nooga ka dhex uraye $30 keen waxa indhaha aan saaray gaariga 5 subax galabnimo yimaada ama 4 barka galabnimo yimaada loo yaacdada soke inuu ka soo dhaqaaqo 8 barka habeenimo gaarigaasi gaari weyn ma gaari reer sidema waa baabuurta yaryar aynu naqaan qareen googa baabuur yar oo qareen gooya 3 saacadood ma la baari karaa baydin la waxay ka soo dhaqaaqaan baabuurta ugu dambeyn 12 ka habeenimo iyaga oo yimid 5 galabnimo dadka reer soo maadartay reer Soomaaliland markay u gudbaan dhinaca jamhuuriyadda Djibouti dadka ciidanka Djibouti aad iyo aad u soo dhaweeyaan hadduu sharci sito iyo hadduuna sharci sidan wixii sharcigu waafaq farayana way ka maran laakiin dhankeenna ma gafa nimankaan waxaan ku tilmaami karaa halka jooga waa ma gafa qofkii oo imika dhaafay hadduu ku soo noqdo imikana $30 baa laga qaaday waxaan ku dhaliilaya oo leeyahay maamulka halka ka shaqeynaya shaqadaasi ha bedelaan ummaduna halla maadarta loo naxariiso gaar ahaan anaga ka guula deegaan ahaan ka shacabka boorama waa xudunta dadka min lawiyacado ama dameer joog badhay ilaa maadartay meesha la yiraahdo maadartay arabsiyo halka iskugu yimaadeen xudunta waa boorama waxaan joogay meesha dadka lagu qorayo dadaan ku tilmaamay 8 aan ku qiyaasi karo 8 qof ayaa waxay sheeganayeen geerisaan ku dhashay jiri baan ku dhashay xarad baan ku dhashay boom baan ku dhashay garbadaan ku dhashay riigaan ku dhashay lughayaan ku dhashay waxa la kadeedaya waa dadka man codkana nasiiyay برينا هدي درن حيسة كله يا ما دركت دمع كله نجد قالوا دورش دم به أنو عدك كسوقين وحلينا شعب كهلوف ضديه قفكي باسبور شتاء باسبور كيس سيدا لولا تعامل أيوه وأسيف عن لولا تعامل قفكي يسوي وصعدة هذا أوجويان جوا لكن وإنت تكلون حريستو ما ذا حدي بهذا يسكتوا له يستوي له ذا يكذا قاق ماشى يكذا قاق ماشى جبهة ما نمن قريه هستأك تجنا نيكا ماليد ونيكا سعدال كنوكي سيدا أيوه نيكا قريه هستا ديبه هذا شرعي وشقي وايو المشي حق نقطه kala dambeyntu way lumaysaa marka waxaan leeyahay madaxda ay arinkaas khusuuso waxa laga qabto dadka Djiboutina dalka Djiboutina waxaan u haynaa xushmad iyo qadarin iyo maamuus baan u haynaa waana shacab wanaagsan dawladooduna waa dawlad si fiican oo la tacaamusha waa in la wanaajiyo isku socodka labada dal aad iyo aad baan idin salaamaya kulay waxa lagu soo arkay indhaha waxa weeyaan shacabka Soomaaliland iyo dawladda Soomaaliland شعب جيبوتي دولة جيبوتي ولا ويان حد بني نقد حياة معامشة إن لفعنا يوم بقرح بين دولتنا الشرعي كده بعده الشرعي كتوسيسه خاصة وزارة الرماء جدوه كله تمر خدت كلا باري لا أنت إيميجريشن كه هي أول حر سعرا مركب أول حر شرعي وطاء دوكيمنتي ستنا وين ما وجدي لجمره دتكينه لكن أنت بدنا شرعي ما هيستان هو دتكين ده محن كده لقرنا يو دتكين لكن الجوجي جيبوتي بده ويجلان ويكسر نقدان وقرابة هم بلوتجا marka dadkii ku dhashay Soomaaliland da sharci haysan qof kasta ay baasaboor ma haysto waa inay sidii awalba ku mari jireen ay ku maraaman leenahay awalba labada xad wala soo gudbiyay inta Soomaaliland jirto afar la tagaasoo buu shaqeynaysay waxa imika soo koosgareeyay ee dadka in la cadaabo keenaya ma garanayo wasaaradda arrimaha gudaha waxay shaqadeeda qabsato wasaaradda maaliyadda rool bay leedahay iyaduna halkeeda ku ekaato laakiin inay isku dul qabsadaan oo yidaahdeen aanu joogno indhaha ka aragnay in wasaaradda immigration wasaaradda arrimaha gudaha la diido maxaan ku dhahay shaqadeedii macaamiisha dadka ay waday iyo service ka waysay oo maaliyaddu tira xoog baan ku qabsanaynaa
waxaa arintaas arin fool xun weyn arin loo dul qaadan karin ma madaxda kale ka sareysana madaxna kulli madax ba ka sareysa madaxweynaha waxaan u sheegaynaa inuu arintaas maxaan ku dhahay uu soo farageliyo waran cadana waan ku qarsoonay wasiirka arrimaha gudaha indhiisa ku soo arkay inuu talaabo sharciyo oo isku socodka labada dal la wanaajinaysa sharcigana in la baaro qurux badnaynaysa inuu ka qaban doono insha Allah ta'ala dadkana waxaan leenahay hal loo naxariisto oo dadkeenii kullina sharci ummadda ma wada haysato dadku dhan sharci wada haystaan dadkiina wala garanayaa. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi